meel kale moodayba walaalay بشارو dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed waxaan ugu bashaaraynayaa inaan idin hayno daawo gabi ahaanba tirtiraysa dad badanna Ilaahay kaga caafiyay xanuunada macaanka dhiigkarka babaasiirta kolestaroolka infectionka xasaasiyadda gaasriga kansarka dhagxaanta kaliya iyo beerka iyo waliba kuwa kale oo aan halkan ku soo koobi karin kuwaasoo laga sameeyay khudaarta iyo cuntooyinka daawada ah sidoo kale waxaan idin haynaa gariimadii oo iyaguna dabiici ah daawooyinka waxa kamid ah daawada loo adeegsado dadka xasuustooda hoos u dhacday isla markaasina waxba xifdi karin daawadan waxay ka samaysan tahay kafee dabiici ah waxadii xaaladaadu ay xun tahay ama baad u baahan tahay shaybaad waxa ku jooga doctor caafimaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin waan salaam saaxiib meel kasta oo naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena imtixaanaha ee Al-Xidhaale qaybtiisa saddexaad haddaba si daawo muuqaalka si uu ku dhaafin dhankiisu fadlan muuqaalka like saar page-ka follow garee haddii aad tahay teamka YouTube-na subscribe taa lagu tilmaamay inta haddii aad samaysay waxa tahay qof nagu qaaliya soo dhaw saaxiib waldhowahay magacaaga saaxiib magacaygu waa Caalin Musa Caalin cali oo Ramadaan Kariim halkan waxa ku jira su'aalahaas insha Allah taala la bixi doontaa jawaabtana insha nimba Itoobiya wax ka soo shitay mir sigaar sax iyadoo sidii u shidan oo aanu baktinin xitaa ayaa Soomaaliland la soo galay sidii u cabaya sababtu maxay ku dhacday sigaarku weynta ma baxay ugu adagtay way ma ku faydiya waxa weeyaan ninku sigaarka wuxuu ka soo shitay xadka agtiisa oo taagan bushitay markiiba xadku ka talaabo Soomaaliland aad iyo aad baan maasanta walaal ku soo dhaw barnaamijka Al-Xidhaale magacaaga Cabdicasiis oo halkan su'aalaha ku jiray mid baad la baxaysaa ka baad jawaabta isku day insha Allah waxa weeyaan waxa sheegtaa wax America laga helo Europe laga helo Africa laga helo balse aan Aasiya laga helin America laga helo Europe laga helo Africa laga helo haddaan su'aasha jawaabteeda isku dayo waa xoolaha nool iyo nafaqadooda yaano aad iyo aad bad maasantay waad isku dayday laakiin waxa weeye su'aashu si yar oo kale u dhigantay boogtay waa Al-Xidhaale marka waxa weeyaan xarafka ra Europe waa ra ku jirta America ra ku jirta Africa ra ku jirta Aasiya laakiin ra kuma jirto waa sidaas saaxiib aad iyo aad bad maasantay saaxiib ku soo dhaw YouTube channel-ka iyo page-ka Abwan Jafa TV oo dhaway magacaaga Sudiisi oo Ramadaan Kariim halkan waxa ku jira su'aalaha la bax insha Allah jawaabtana isku day waxa weeyaan haddii lagu yiraahdo ducadaada waa lagu aqbalaya ducadaadu waa maqbuul hal shay Ilaahay weydiisan maxaad weydiisan lahayd inuu Ilaahay quraanka xifdisiyo ma sha Allah tabaaraka Allah Ilaahay ku aqbalo waan ku leeyahay saaxiib ku soo dhaw YouTube channel-ka iyo page-ka Abwan Jafa TV ugu horreyn magacaaga Xamsa la yiraahdo walaalun dhaway Xamsa Ramadaan Kariim halkan waxa ku jira su'aalaha mid kamid ah la bax insha Allah jawaabtana isku day waxa la guuri shay waxada oo hadina madow wallahi su'aasha haddaan isku dayo mooyo wallahi garamaayo de ma ku faydiya faydi waa ishaada in cadiin madow Soomaali waa sida meel kale moodayba walaalay soo dhaw saaxiib mandhoy liix magacaaga saaxiib Cabdiraxmaan oo Ramadaan Kariim halkan waxa ku jirta hal su'aashaas la baxaysa insha Allah taala isku day waxa weeyaan lacalla haddii lagu yiraahdo 5 minutes baad haysataa 5 mir cimrigaaga inta doonto ku darso imsa sanaad ku darsan lahayd diyaartu kulli wala dhimanayaa duulaayo wal badin la insha Allah imsa kun sano warta Soomaalida kulli way iska naf jecel moogtay anigu laba ka dhigan lahaa 2 sano ka dhigan lahaa
waxaan ku hayaa fursad shaqo oo aad kaga shaqaysan karto meel kasta oo dunida ka joogto. Shaqadaasina waxaad qabsan kartaa xilligii aad doonto ama firaaqaad haysato. Waana shaqo run ahaantii aan oran karo waa shaqooyinka ugu fudud uguna lacagta badan. Haddii aad u baahan tahay iyadana waxaad nagala soo xiriiri kartaa lambarka shaashada ku qoran.